السلام عليكم سودو هذا مركله مقالكن maanta waxaynu ku eegi doonaa ninkan idin muuqda gabi ahaan buujigiisu waa isbedelay ninkan oo kaliya wajigiisu isma bedelin laakiin qaar badan oo kale oo kamid reerkiisa ay ku dhacday arintani haddaba kaliya 25 qof oo kamid ah 7 bilyan ee adduunka ku nool ayuu xanuunkani saameeyay 5 qof oo kamid ah 25 kaasina waxay ku nool yihiin Indonesia waxayna ka tirsan yihiin familkan aynu maanta eegi doono xanuunkan ayaa haddaba wuxuu saameeyay dhammaan reerkan oo dhan marka laga reebo 2 gabdhood ninkan ayaa magaciisa waxa la yiraahdaa Surya Manoro inkastoo wajigiisu sidaa isku bedelay haddana wuxuu ku guuleystay inuu reer yeesho oo gabadh uu guursado sidoo kalena uu noqdo mid ka mid ah tiktokerada ugu caansan Indonesia lacagta sida maalinlaha uga soo gasha live-afka uu ka gala TikTok-na waxay gaadhaysaa $500 maalintii muuqaalkan maantana ninkan ayaa booqanaya waxaanu inala wadaagi doonaa wax walba oo ku saabsan reerkan haddaba ugu horreyn ninkani waxa uu imanayaa magaalada Medan ee gobolka Sumatra Indonesia 4 saacadoodna waxay gaadhay u raaceen magaalo yar oo familygani ka degan yihiin dalka Indonesia intaa kadib markay guriga tagaana waxay arkayaan ninka oo gurigiisa sii galaya kadib way salaamayaan kadib labadoodaba waxa uu kaxaynaya guriga uu degan yahay gudaha markay galana dhammaan waxay la kulmayaan ninkan iyo familgiisa aabihii oo xataa sida noqday ay la kulmayaan walaalihii iyo waliba xaaskiisa inta kadib markay fariistaan ninkan waxa weydiinaya sida ay ku soo galeen TikTok ama ay ku bilaabeen ninkii kale la socday ee u tarjumayaan oo sharaxay waxaan u sheegayaa in marka hore ay iskaga bilaabeen qaab ay iska xiiseynayaan laakiin markii dambe ay qarxeen oo dadka oo dhan ay barteen reerkan inta kadib waxa weydiinaya magaca xanuunkan iyaga ku dhacay ama syndrome-kan waxaana la yiraahdaa Barber Say syndrome ninka ayaan u sheegaya xanuunkan haddaba waxa la ogaan karaa marka uu ilmaha yar xataa caloosha ku jira inuu leeyahay in kale haddaba ninkan waxa la walaalaa 4 gabdhood 4 gabdhood 2 kamid ayaa leh xanuunkan 2 kamid ma laha sida hooyadood oo kale laakiin labadaa le waxa ay ka raaceen ama ay xanuunkan uga soo gudbay dhanka aabahood inta kadib ninkan waxa uu tusi doonaa video TikTok si ay u duubaan kadibna dhamaantoodba isaga iyo ninka iyo gabdhaha la dhashay oo dhan waxay duubi doonaa videogan ninka YouTuber-kana uu ka duubaya isagoo ninka YouTuber-ka laftirkiisuna jaaska la sameynaya marka dambe haddaba reerkan iyo familkan aad bay ugu adkayd in waxbarashada ay galaan waliba kuwa leh xanuunkan marar fara badanna waxaa lagu daandaansaday ama bullying lagu sameeyay iskuulka iyadoo lagu takoorayo xanuunkan ku dhacay ama wejigooda qaabka uu eeg yahay laakiin sidaas ay tahay waxay ku guuleysteen in dadkaas ay ka hortagaan oo baraha bulshadana ay caan ka noqdaan wejiyadoodana ay sidaa kusoo bandhigaan qoladana waqti xaadirkan waa dad aad caan uga Indonesia oo dhan sababtuna ay tahay TikTok ay lafka ka soo galaan ee dadka oo dhan ay ku barteen sidoo kale reerkan waxaa laga daawadaa meelo fara badan oo caalamka kamida sida ninkan Suuriya uu sheegayo Amerika, Brazil, Canada, Mexico, England iyagoo sidoo kale uu sheegaya inta koorka lagu sameeyay ay ka dhigteen dhiirigelin ay kaga hortagaan oo ay iskaga difaacayaan dadka waxaas ku sameynaya ee ku takooraya qaabka wajigooda uu eegyahay sidoo kale ninka YouTuber-kana uu dhiirigelinaya waxaan ku oranayaa cid wax idin ka qaadi kartaa ma jirto iska celiyo kornaya wixii idin soo doontaa waxaan ku oranayaa dad awood latiin sadkeeya haddaba sidoo kale ninkan xaaskiisa aad bay u garab istaagtaa oo kumay takoorin iyadoo qaabka wajigiisu uu eegyahay waxayna ogolaatay inay guursato sidoo kale caruur ay dhaleen caruurta ay dhaleenna waxay ku qanacsan yihiin si kastoo ay noqdaan inuu yahay wax Ilaahay ku arsaaqay inta kadib ninkan waxa uu soo diyaarsanayaa qalabkiisii si uu u tuso amaba live uu galo ninkan YouTuber-kana uu duubto kadib waxay diyaarsanayaan alaabtoodii iyo qalabkii ay ku duubayeen haddaba guud ahaan marka la isku geeyo lacagta ay sida billaha uga helaan TikTok waxay gaadhaysaa $100,000 qaababka ay u sameeyaan waa ama inay challenge la galaan dadka TikTok ku jira ama live-iskaas ay soo galaan oo waxyaabo loo sheegay ay sameeyaan haddaba marka live-afka la geliyo dhammaantood way ka soo wada qayb galaan oo ninka oo kaliya ma galo isagoo ninkani marka dambe sharaxaya qaabka ay lacagta uga helaan wuxuu oranayaa sida caadiga ah
sida live-ka loo galo gifts virtual lagu soo dirayaa kadibna lacag baad u bedelinaysaa sida caadiga ee TikTok ku shaqeysa ayuu sharaxayaa isagoo sidoo kale sheegaya libaaxyada loo soo diro libaax yar ka waaweyn lacagtan ay sidaas ku sameeyaan iyo sidoo kale dhammaanba wuxuu sharaxayaa giftiyada noocyada kala duwan ee TikTok ku jira la soo diro marka tabara TikTok ay geliyaan live-kii Happy weekend. aad buu qosil badan yahay live-ka ku jiraan dadkii madadaalinayaan waxaana waxay lacag ka sameeyaan si fiican bay u barteen sida aad ka arki karaysa qaabkii u sameynayaan inta kadib sidoo kale waxay u geynayaan dhammaan dadka jaarka lahaa oo reerkan dhammaantood wada yaqaana ninkan youtuberkana waxa uu ku soo qaadanayaa aayadii suuratul baqara ku jirtay wacasa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum oo la micnaa waxyaabo far badan oo aad diidaysaan baa jira laakiin khayr idinku jiro idinku aydan ogeyn marka dabana ninkan live-tii baa kula biiraya isagoo koranaya share gareeya dadka live-ka u daawanayna 10,000 qof bay gaadhayeenba libaax yar baana sida loogu soo dirayaa inay farxayaan sidoo kale ninkan waxa uu tagayaa meesha laga soo iibiyo moobilada 2 iPhone Pro ayaan u soo iibinayaa aad bay nagu farxayaan 2 iPhone dhammaantoodna wuu la soo wada dabaaldegaya marka dambe Iya, it's very happy. Fantastic. Happy birthday! haddaba ninka la socda ninkan youtuberka waxa uu sheegayaa in ilaa imika xanuunkan wax lagu daweeyaan la helin laakiin kaliya xanuunkan waxa uu saameynayaa qofka wejigiisa qaybaha kale oo dhan caadi bay ahaanayaan sidoo kale jirka qaybihiisa kala duwan wax xanuun oo ay ka dareemayaan ma jiraan kaliya dhibaatada ay ku haysaa waxa weeye in dad dhexgalku ku adkaanayo maadaama wejigooda aan lala qabsan marka dambe waxay waraysanayaan mid ka mid a ninkan gabdhaha la walaala ah oo iyadoo aanu xanuunkani ku dhicin waxayna sheegaysaa in weligeed ayna ka khajilin amaba ayna ka xishoon walaalaheedan kale ee wejigooda noocan u egyahay inay la socoto ay weheliso intaa kadib dhammaantood way soo raacayaan si meel babliga oo dadku ay joogaan ay u tagaan dhammaantoodna way soo raacayaan waxayna imanayaan meel dadku ku badan yihiin dadkuna dhammaantood sawiraayo la wada gelayaanba goobtan ayaana ah goob dadku isugu yimaadaan oo aad jawigaaga iskaga qaadan karto geemam virtual iska soo ciyaarayaan ama bahasha madaxa la gashto sidoo kale ice cream iyo waxaas iska soo cunayaan ugu dambayntana muuqaalka gabagabadiisa ninkan wuxuu siinayaaba lacag iyagoona aad ugu farxaya saaxiibayaal haddaba ay loobina inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale channelkan aad subscribe noo saartaan aad baad mahadsantiin